wafdi ballaaran oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxayna mas'uuliyiintani kulan kula yeesheen howlka dowladda hoose degmada Caynaba mas'uuliyiinta golaha deegaanka degmada Caynaba kulankani ayaa lagaga hadlayay sidii loo horumarin lahaa degmada Caynaba ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha horumarinta gobolada iyo degmooyinka waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaanu u nimi hadal ka dhigo kormeer wasaaradda arrimaha gudaha ay sameynayso ay degmooyinka qaarkood ku tagtay la saacad baan soo maray waxa ku xigta Caynaba hadii alla ka dhigo aan gaban tagi doon hadal ka dhigo ujeedadu waxa weeye marka in la soo qiimeeyo kormeerkaas xaaladaha dowladda hoose si loo qorsheeyo in horumar loo sameeyo iyagana wax qabadkii laga bilaabo waxa wax qabadka ugu muhiimsan marka qiimeynta hore la helo tababarka shaqaalaha in la sameeyo kor loo qaado aqoontooda in qalab wixii lagu caawin karo qalabka la helo iyo in la helo xafiisyo lagu shaqeeyo ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf iyo xogayaha dowladda hoose degmada Caynaba Cumar Maxamuud oo Muuse waxayna si isku mid ah u soo dhaweeyeen wafdadina ka socota wasaaradda arrimaha gudaha waxaan soo dhaweeyay maanta tiimkan agaasimaha horumarinta degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha tiimkan uu hogaaminayo maxadka tababarada dowladda hoose iyo tiimka kale ee la socda rumaantii aad iyo aad baan soo dhaweynaa in badan baan kulley xaggaa soo eeginay wasaaradda arrimaha gudaha iyo caasimadda iyo hadda mashaariicda ka socota dalka aanu eeginay maanta hadday nala joogaan iyagoo wada saamintii iyo waxqabadkii bilowgiisii aadaan ilaahayna ugu mahad celinaa soo gaarsiiyay waxaanu mahad celinaa tiimkan Maxamed Cali hogaaminay mashruucan ay wado wasaaradda arrimaha guduhu ay u soo xil saartay aad baan ugu mahad celinaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaayin Axmed oo mashruucan dhaqaajiyay hore loo dhaqaajin kari waayay iyadoo in badan wasaaradda arrimaha guduhu doonaysay inay dhaqaajiso oo ka kaaftoomay wixii la oran jiray hay'adaha iyo waxa oo wasaaradda arrimaha guduhu hadeer ay isku dayayso inay dhaqaajiso gobolada bariga 15 degmee hadhay وعلي آدم درد علي تاني ورقة تلفزيون كون كيبل مقالة Caynaba